دولة إن وحى إليهن وحاكوه الرئيسة إن بحكاس إثيوبيا إن لو وضح الله ودور مربو الرئيس الوزراء كباقي وهو شيء إن هدي انتوا على سلقر في إثيوبيا إسلامانتها بوضعي كابو يري مركا ننع الدولة التي تكون عبسيني قضاء وهدي إثيوبيا بعده انضباط بدن إيمانيسو إثيوبيا هدي بعده انضباط إيمانيسو انضباط محبة كاقنتها وحانا انضباط إيماني وحان كويري عيدا ماذا لمكا واحد وقتها إثيوبيا security council كبرمجة مدولي صدح عم أفر قوانه وقاري انتي عمد ولدك كمالجار يعني وعن ملاحظ وهاي كده انا كده انت لو حالوهم من نوعي دولدها ترسكا من عيدا صوماليا كينا مركن سيدا تاي ايرو برمجة مدولي ممنوعين جنادين حضي بحان وحافدالية عيدا برمجة مدولي وقار كود مقصع دولدها نوعها دولك اليوروب آسيا أفريقيا وأنا مدة الصومالية نفسها marka ma dhacayso inay meeshu qaarub noqotee ciidamada heshiis lagu yahay oo aan Soomaalida dhinacna diidaneyn ayaa nabadda sugaya Soomaaliduna waa wada hadlaysaa ayay hadalkeedu yahay saasaan qabaa لكن أفيانو هل واحدة الدولة كسر ورشة دكتور عبد القاسم وحا شيء إن حتى هدي توقف بعده أنا الدولة صدر هالك دجاج كجو جنتون هاوي مثل وجع بتقبل dagaalka waxaa wada dad Soomaaliya oo dalkooda iyo dadkooda u danqanaya aniga ka hadli maayo dadka dhibaatada ku haya shacbiga oo qofka miskiinka ah waxba galabsan xabada ku dhufanaya oo ninka madaalka soo baxay oo waxay leeyahay oo laga hadlayo waxaan ka hadlaya dalkaaga hadii la qabsado difaac xaq iyo waajib uu yahay maanta uu hadii qolada ay baxdo qaramada midoobay ciidamo ka socda yimaadaan wax dhibaataa u dhicin maysee wax lagu marmarsoodo oo qolka ku marmarsoodo kalaana jiri maysee waa la wada hadlayaa wax raali lagu yahay oo bulshada Soomaaliyeed wax garabkeedu raali ku yahay ayaana la dhisayaa waxaasana maslaxad waa ummadda Soomaaliyeed taasana nabad lagu gaaray adigu madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa tahay muqdishona waa joogtaa wali wax xiriir labada dhinac ma la samaysay oo dhinaca asmara ama kooxaha gudaha muqdisho ka dagaalamaya ee dawladda ka soo horjeeda iyo dhinaca dawladda la tirkeeda wallahi yani halka kan waxaad la socotaa nimanka kan madaxda ah Abdullahi Salka waa intii hore barnaamijka anigu mar baan u tagay oo markii Allah u xariiqay madaxweyne aadan Cabdullahi Cusmaan duuleeyay ayaa isku kaayo reeyay inta batalooyinkan Siiriya kuwaas oo kale ayay ahaayeen ciidamadan aan Soomaalidu doonayay in laga saaro dalka ciidamada heshiis ugu yahay maradii ay xukuumaddu leedahay war anagu ubka digiyo wax kala midna ma qaban karo hadda waayay ciidamada heshiis ugu yahay oo aan dhinacna diidaneyn oo ayaga warkoodu yahay kaliya ciidamada Soomaaliyeed ee mustaqbalkana tababaraan وكبيرة دي وسمينا هم كدجان انت تذكر الشيء اللي عن ماشى نبتدي الى هلا كان ايام كويري وهي انت كتم دي هذا هو عبط نسبة ممكن اينو والله كتنو ليس كتنو هالشيء اذا ما دو دي لك كانوا هو سؤالك تاعي برلماننا يوصل حلالين فانكو شاغل برلمان هو حاكمي الكرسي كانوا كبرمجة بدوري dhinaca kale dawladda Mareykanka inta badan markii aad ka hadlayso Soomaaliya waxaad ku tilmaantaa in ay iyada dhibaatada Soomaaliya inay ka soconaysa ay madax u tahay hadana qaldaneyn hadana warbixin soo saartay dawladda Mareykanka waxay ku sheegtay inay liiska argagixisada ku dartay ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya arrintaas sidee baad u arkaysaa ومركا هو الرئيس مركا دولة الشعب الكالفارو شعب المريكان كي شعب الصوماليين فاحد من الدوسرين وقرنيو قرني طيب
sagaaliyo tobnaad bilaabatay ayaa ka dhaxaysa intii Soomaaliya ay xorriyada qaadanna unsuliyad bay ku lahaayeen dalka markii Soomaaliya xorriyada qaatana safaarad ballaaran baa u joogtay ummadda shacbiga Maraykanku wax badan oo ama xagga tacliinta ama xagga beeraha ama xagga diinteeda leeyahay dariiqyada ama wax badan uu uga qabtay dowladihii Soomaaliya ka soo jiray oo gaar ahaan kuwii gacanka ka horreeyay gacanka ka horreeyay shacbiga Maraykanka lacagtiisii ayayna ahayd waxa lagu qabanay wax xumaana oo shacbi ahaan shacbiga Maraykanka loo qabay oo shacbiga Soomaaliyeed u qaban jiray ma jirin bal cagsi wanaag baa loo qabay horena waa u sheegay ha yeeshee ayaan darro waxa ah shacbigii sidaas loo qabay ummadda Soomaaliyeed u qabtay dowladda maanta ka talisa iyo intii hadda burburkaan ku jiray raggii isbedelayda inay kalifeen in maantay waxa laala waxa dhibaatada Soomaaliya ka dhacay firkeedu inuu Washington tago taasuna ay ahayn mid aan iska leeyahay xeeldheerayaal Maraykanku kordhisan inay arrin sidaas tahay oo hataa ciidamada kale soo howlgeliyay ee meeshii joogay Ethiopia in lagu tababarayay 2003 laga bilaabo gurigii lagu tababarayay oo Maraykanka laftiisa la kamid oo ay sheegeen arrintaas marka waa mid xiriirkii soo jireenka ah ee wanaagsanaa runtii sumaysay waa mid wiilka Soomaalidu isweydiin doonto waa mid aan rajaynayno in ay tirtiranto oo maamulka Bush ama hadda inta u hartay uu isbedel muujiyo ama ka wixii doonaa uu isbedel muujiyo isbedelkaas oo ah Soomaaliya in cadaadinta laga daayo cadaadintaas oo korortay waa korortay maxaa jira hore u sheeg anigu madaxda maamulka kan kala qaadqaadi maayo madaxweyne iyo prime minister iyo anigu haddana ma arag wax gaar ah oo shakhsi arrintu ma aha qofku ama hadal fiicnaado ama hadal xumaado arrin joogta ma aha waxa weeye arrin u taala markay gudaha tahayna nimanka maamulka noocaay maamula oo Soomaaliya ma maamula markay dibadda joogtana dowladda adduunka ugu weyn iyo dowladaha kale ee Soomaaliya daneynaya arrin u taala weeye talada wax ku furayaan midaas aan soo jeediyo waa garteen warbaahinta qaarkood waxa ay maalmo dhaweed sheegayeen in aad doonaysay inaad casmaro tagto ama adigoo dhinacyadan hadda casmaro iyo qolooyinkan kale oo dowladda ka soo horjeeda oo aad moodid inay kala mowqif duwanaayeen in aad wax la meel dhigto ama aad isu geyso arrintaa miyay jirtay mudane Cabdiqaasim arrintaas saliya raatoona ma laha dalka ayaanan gelinay inaan wax ka jirin oo xafiiskayga xogeyntiisa ayaa gelisay dacaayad iska raqiisa oo la samaynayo weeye cid loo kala dabqaadayo iyo cid loo kala dabqaadi karaa midna ma jirto qodobadaasaan soo jeedinay markii la hirgeliyo qof kastoo Soomaaliya oo ahlu khayr oo dalkiisa wanaagiisa raba waxaa waajib ku ah wixii san oo Soomaaliya nabad ku noqonayso oo dalku ku degayo oo dhibaatada aan kaga baxayno inuu qaybtiisa ka saato wixii uu ka geysan karo inuu ka geysto laakiin waa waqtiga ay tahay waajib in hawsha lagu dhaqaaqo ciidamadan hadda AMISOM marka laga tago ciidamada Ethioopiyaanka qaramada midoobe waa la socotaa in ay ku dhawaaqday in ciidamo ka socda dalalka caalamka la keeno ciidamada AMISOMna qaar baa ka jooga waxaa jira xubno waaweyn oo dowladda ka soo horjeeda oo ama casmaro fadhiya ama meelo kala jooga oo xitaa aan rabin wax ciidana in la keeno Soomaaliya arrintaasi sidee wax looga qaban karayaa aniga waxaan qabaa golihii ammaanku maanta tan joogno ayuu ka shirayay arrintaas weli go'aan ka soo baxay maayo haddana adigu haytaan warmaayo waxay ahayd ciidamada la keenayo inuu sheego iyo in la keenayo inaan la keenayn golaha ammaanka iyo qaramada midoobeyna hadee waxaan ognahay dowladaha reer galbeedka oo Maraykanku madax u yahay ayaa awood ballaaran ku leh waxaan rajaynaynaa ciidamada qaramada midoobey ka socda in la go'aamiyo in la keeno waa kow marka ku xigta ciidamadaas